kusoo dhawaada saaxiibayaal taariikhda magaalada Beledweyne waa magaalo taariikhi ah oo ku taala bartamaha Soomaaliya waana xarunta gobolka Hiiraan. magaaladu waxay leedahay taariikh fac weyn oo ka turjumaysa muhiimadda dhaqanka iyo dhaqaalaha siyaasadda. waa magaalo muhiim u ah Soomaaliya xagga isku xirka gobolada waqooyi iyo koonfur iyo bartamaha dalka. waxay ku taalaa meel istaraatiijiyad ah oo ku dhow webiga Shabeelle kaasi oo qayb weyn ka qaata nolosha dadka degan magaalada iyo deegaanka ku xeeran. Beledweyne waxaa la rumaysan yahay in la aasaasay qarnigii 19aad ayadoo markii hore ahayd tuulo yar oo ku nool yihiin beeraley iyo xoolo dhaqato. tuuladan ayaa si tartiib ah u noqotay magaalo weyn oo ganacsi iyo dhaqaale leh intii lagu jiray xilligii gumaystayaasha gaar ahaan Talyaaniga iyo Ingiriiska. Beledweyne waxay ahayd meel istaraatiijiyad ah. webiga Shabeelle ayaa fududeeyay gaadiidka iyo xiriirka gobolada kale. sidoo kale magaaladu waxay xudun u tahay ganacsiga xoolaha iyo dalagyada beeraha. kadib markii Soomaaliya xorriyadda qaadatay 1960kii, Beledweyne waxay door muhiim ah ka ciyaartay siyaasadda dalka. waxay ahayd goob ay ka soo jeedaan halgamayaal iyo siyaasiyiin caan ka ah. Beledweyne waa meel ay ku kulmaan dhaqamada kala duwan ee bulshada Soomaaliyeed, waana magaalo loo yaqaano martigelinta iyo ganacsiga iyada oo si gaar ah uga caan ah xoolaha dhaqashada, dalagyada iyo suuqyada waaweyn. webiga Shabeelle ayaa door muhiim ah ka qaata taariikhda iyo nolosha magaalada. waxaa lagu sameeyaa waraabka beeraha, waxaana webiga u dhow suuqyo waaweyn oo lagu iibiyo dalagyada kala duwan sida galleyda, digirta iyo qaraha. Beledweyne sida magaceeda ka muuqato waxaa u taagan tahay awood iyo facweyni oo bulshada Soomaaliyeed ku faanto.